magaalada Afgooye magaalo xadaarad leh taariikhdeeda weyn magaalooyinka Soomaaliya ugu mug weyn ka tirsan waxay lahaan jirtay dawlad ka horba nidaam dawladeed waxa hoggaan u ah boqortooyadaas ka hor gumaysigii oo dhisnaa Afgooye taariikhdiisa waxa lagu xusaa dadkii ugu horeeyay oo gumaystaha la dagaalamo dagaalkii la foole waxa lagu la dagaalamay huwantaas ambareelahaas oo ay hogaaminayso boqortooyadaas saldanadaas galadii waxay la yimaadeen heshiis gaaladii Talyaaniga waxay la galeen duqeytidii magaalada kadib Talyaanigii wadankii markuu si fiican u qabsaday wuxuu keenay oo dadka lagu gumaysan jiray beeraha lagu fali jiray mudday socotay marka hore waxaa deganaa inta boqortooyo silcis mudday haysteen waagaas xukunkooda aad u adkaa gumaysi yar oo ahaa taariikhda sida la sheego meelo badan ay soo gumaysteen laakiin xukunkooda fashilkiisa iyo baabi'iisa magaalada Afgooye ku yimid boqortooyadii silcis waa la dagaalamay waxa la dagaalamay ambareelihii Afgooye u dhisnaa ambareelahaas ku kacay boqortooyadii silciska meesha lagu jabiyay waa ay Afgooye magaca markaas meeshuu ka yimid marka hore Arunda la dhihi jiray magaalada Afgooye xadaaradeeda waa mid aad u weyn waxay leedahay dhaqan soo jireen waxa ugu horeeyo oo lagu xusaa istunka waxa dabayaal shir tigida loo soo qaadan jiray magaalada istunkaas waxa loo dheeli jiray tolweyne iyo Yabadhaale ma aha qabiil waa caado dhaqameed walow xilligii gumaysiga ula waaweyn iyo wax nooc walba lagu dheeli jiray laakiin waxa la soo celiyay kacaanka markuu yimid ula yaryar ulihii loogu talagalay ulahaas oo lagu magacaabo labay waa magaalo qani ah isbixin karto gobolada dalka saamigi ka soo bax gobolada dalka loo qeybin jiray alxamdulillah magaalada waxay ku dhisan tahay zaraaca beeraha iyo xoolaha labadaba Afgooye magaalada xamar luqunteeda waa xamar Afgooye kama maarmo 30 kilomitir ay isu jiraan caasimadii waaye waagii hore gobolka Banaadir aan iskala tirsanay magaalada Afgooye dadkeeda waa dad ahlu diin ah beeraley ah aan hubaysnayn kacaanka Afgooye wuxuu dhisay warshadii Itoob qudaartay shiidi jirtay yoogada yaanyada waxyaabahaas ay soo saaraysay kacaanka meelahaas aad ugu fiicnaa horumarinta waqtiyada dambe mar haddii wadan dagaal uu dhaco waa iska fashilmaa israacdo ummadda Soomaaliyeed ninkii Afgooye jooga reer Afgooye waa